بسم الله الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ما هو خير لنا واختر لنا ما تحب وترضى في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحان لهالليا أمد الصومالية ميلي جوكتبا كان هان أمد الصومالية ديغانك الصومالية وقادين أيان سيجارة ولهالليا halka waxaa maanta waxaan doonayaa inaan press release aan ka soo saarno oo ku wajahan howlaha maanta ogaadeenka ka jira gaar ahaan ONLF iyo deegaanka. waxaan doonayaa inaan ka hadlo laba qodob saddex qodob haddii laga tagi waayo. waxa weeye waxaad maqlayseen qolo ONLF sheeganaysa oo leh shir baanu qabsanay xubnaanu nahay sida awgeed waxaa shir weyn aan qabanaynaa gudoomiyihii baanu shaqadii mataqaana ka qaadnay iyagu wax isku magacaabay ayaad maqlayseen. dadkaasi horta markuu horeysa waxaan doonayaa nooca yihiin iyo ONLF waxay ka ahaayeen inaan maaragtay halkan aan runtii dul istaagno. markuu horeysa horta tirada ay sheegteen ay leeyihiin intaasoo tiro aanu nahayoo golo dhexaanu nahay golo dhexoo sharciga may aha. tiraduna waa tiro been aho been abuura lafteedu oo haddii loo baahdo aan caddaynteeda idin siin doono. marka u horeysa dadka ONLF sheeganaya ee barnaamijka ay ONLF baanu kula wareegeynaa le abuurayahay horta waxaa weeye sidanay u kala qaybsan yihiin. tirada meesha aad ku aragteen 22 xubnood oo ka mid ah ururka waxaa laga eriyey 29kii bishii koowaad 2021 yaa maxkamad la saaray. maxkamad baa la saaray. maxkamadda dadkii go'aaminayay macnihii guddigii maxkamadda raggii ka midka ahaa qaar ka mid ah iyagii yaa hadda kuwan dhex taataagan. waxaa ka mid ahaa mataqaanaa matalan maxamed khaliif ismaaciil oo gabdiid ah iyo khadar colaado hadda kuwa dhexdoodii raggii ragga maxkamadda saaray yay ahaayeen. maxaa kaloo raggii maxkamadda markii la saaray golaha dhexe markaa xilliga waxaa xogayo guud ka ahaa maxamed shariifna raggii saxiixay ee loo gudbiyey ayuu ku jiray. dadku marka 2021 ka saaray ONLF laga saaray golaheeda dhexe way ragga maanta sharciyadii baanu gudoomiyaha ka qaadnay iyo sharci baan nahay ku andacoonaya. haddaan idin tiriya 22kaas waa xaadin kala qaadi doonaa ragga meesha joogay qaybahay kala ahaayeen. waxaa ka mid ahaa ragga sharciyadii ONLF horey looga qaaday golo dhexe ahayn sida sharciga ah maxkamaddu u xukuntay dhiira caafi رياء حامد أحمد محمد أسد شيخ بدري عبد حسن يوسف تارسو صالح شيخ محمد زهور قيلة عبد الله محمد بعلول فؤاد شيخ حسين والله يقانو محمد طوب الله يقانو محمد ياق حاجي حسن نيلا يلعبو عبد الستار أحمد إندبور منوى بري عبد المالك رابي خضر شكري أحمد ياسين إبراهيم شيخ عبدي محمود طيب محمد علي أحمد بشير أحمد مختل كالديق موسى محمد طاهر عوهية عبد النور إبراهيم أولى آدم عبد الرحمن تخري إيو حسين محمد نور حسين محمد نور وحسين بعوضة وقرنسان. وحاوية رالي هذا حدي ما ارتي ونعني سهم بكمتها حد عندنا قارها نقول ما جينا فقال مركا وحان هذا ماشي الجوجين او يو كما إبراهيم أولى يومك اللي هذا محمد داير عالهي لا أصحمنود ويكتلين ويو هذا ليسكن كمين جري لكن ولا ليسكا هوري أي كجرين. waxaa hakad la siiyey oo markaa iyaguna muddo 6 bilood hakada la siiyey
hakadka markii la siiyey kabacdina aan soo codsanin toddoba kale laakiin toddobada hakadka ayaga waktigooda uu dhammaaday marka iyaga kusii mashquuli mayno halkaas waxaad ka saartaa markaa 20 qof maadaama ay 22 waxaa ka maqan oon shirka joogin uule iyo alhaye marka 20 laga saaray golaha dhexe ayaa halkan idinku qoran oo ilaa waxaan matalaynaa golihii dhexe waxaa kaloo jirta si sharcigu dhigayo oo neeba xeerkeedu weliba dhigayo qodob odhanaya haddii xubinku urur ka tirsan uu galo hay-adaha nabad sugidda hadduu ka mid noqdo automatically ururka ka baxayaa macnihii golo dhexe iskaba dhaaf xubinnimadii ururka ayuu haddaa yuusaa ku weynayaa waxaa markan halkan oo iyaguna fadhiya 9 xubnood oo ka tirsan nabad sugidda ama hay-adaha amniga ee deegaanka oo iyaguna sidaa ururkiiba kaga baxay si sharci ah sida xeerka neeba iyo dowladda Itoobiya barnaamijkeeda uu qabo waxaa ka mid ah Axmed Sheekh Cabdullaahi Sanweyne dhiira caafi oo xaggaana lagaga saaray nabad sugiddana ka shaqeeya Fuaad Xuseen oo isaguna oo Maxamed Dhuuba oo xeerkii hore iyo maxkamadiina ay ka saartay nabad sugiddana haddana sidaa ugu shaqeeya Cabdisataar oo isna at the same time labada dhinacba ku jira oo maxkamadina ka saartay nabad sugiddana u shaqeynaya Cabdullaahi Maxamed Aadan oo ah xubin oo isna waa sidoo kale kulli labada dambiga ku wada jiraan marna maxkamad baa ka saartay marna nabad sugid bay u shaqeynayeen waxaa ka mid ah Maxamed Asad sidaas oo kale Maxamed Cabdullaahi Maxamed Sheekh Cabdullaahi baa la yiraahdaa Maxamed Asad Sheekh Cabdullaahi ama oo isaguna waa saas oo kale Maxamed Bacalin waa the same case waa lamid Cabdi Xasan Teerso waa lamid isagoo laga saaray waxaa kalan ahaa Cabdinuur Faroole oo isagu sidaa ku galaya 9kaasi iyaguna waxay noqonayaan wax kayska nabad sugidda lagaga saarayo ururnimadii lagaga saarayo iyo wax kale oo ka duwanoo ah kuwii maxkamaddu ay ka saartay halkaa maxaad ku haysataan adigu isku celcesho 20kii wixii kale siyaada ah halkan ayaad kaga darsanaysaa waxaa kaloo jira dad iskood isu casilay oo warqadahoodii la hayo dadka iskood isu casilay waxaa ka mid ah 2 nin kayskoodu uu ka duwan yahay oo intay iscasileen bay urur kale ku biireen oo urur kale ayay hadda mudanayaal iyo ugu jiraan deegaan doorashooyin waa Xasan Macalin Axmed iyo ninka la yiraahdo Nuuruddin Ibraahim labadaasina BB bay ku biireen oo hadda ay xubno BB lagu soo doortay ku yihiin oo leftos bay uga baxeen waxaa kale oo iscasilay oo warqadoodii iscasilaada soo gudbiyey oo la wada hayo Maxamed Cabdullaahi Sooc uu iscasilay Cabdirasaaq Sarhaye oo isaguna iscasilay Cabdixakiim Kalaweyne oo isagu iscasilaada weliba ku sii daray anu ONLF waan ka baxay oo isaguna warqadiisi la hayo warqad official oo isna uu keenay Cali Maxamed Kunnaay marka 6daasina waxay ahaayeen inta wax iscasilay 7daasi wax iscasilay iyo wax BB ku beeray marka dadka meesha jabhadaydiisa ka dhigaya oo ONLF iyo golaheeda dhexe ku andacoonaya inay yihiin waxaad ogaataan inayna qof qud ah oo sharciyan ONLF ah uusan ku jirin ee ay yihiin wax ayuun hadda maartay dee meel kale laga soo abaabulay intaa markii aan ka gudubno waxaan u gudbayaa waxaa dhacday inaad maqlayseen shalayto warqado la soo qorqoray oo qoladan ay soo qoreen ay leeyihiin xafiisyadii iyo maamulkii ONLF
yaanu mas-uul ka nahay oo warqad ay u qorayaan oo leeyihiin waanu la wareegayna arrintaasi kolley waxaan u arkaa ama ay tahay dhibaato iyo faldambiyeedyo la doonayo in laga abuuro deegaanka deganaansho la-aan iyo xasilooni darrona in la abuuro la doonayo oo NLF sharciyan bay iyo heshiis ay dowladda Itoobiya la gashay ayay dalka ku joogtaa waxa kaliya hadda heshiisyadii ka hana qaaday hawlgalkiina wuxuu ahaa in si nabada lagu halgamo marka horeyso horta oo aan la weli nabad ku halgankii ayay ku taagantahay waxyaalaha propagandada meelaha laga afuufaya oo dagaal bay wadaa iyo dagaal baa jiri iyo waxaas sheekada cidda sheegaysa ayay ka timid wax oo NLF ka timid ma oo NLF barnaamijkii heshiiska ay ku gashay nabad iyo deganaansho kamid ka ahaa iyo nabad ku halganku ayay weli ku taagan tahay welina ma ayna waxba ka bedelin sida awgeed cidii dagaal iyo qalalaasa iyadu hindisaysa iyada u taala mas'uuliyadeedana iyada qaadi doonta waxaan marka sheegaynaa kooxdan hadda ismagacawday aan sharciga ahayn oo NLF ahayn wax nabadsigu shaqeeyay wax hore isu casilay iyo wax laga eriyay mas'uuliyadeeda haddii ay hawlaha oo NLF ay xadgudub ku soo sameeyaan mas'uuliyadeeda iyaga qaadi doona waxaan kale uga digaynaa maamulka deegaanka madaxweynaha arrimahaas mas'uuliyadeeda iyaga ayay runtii qoortooda tahay amniga iyo deganaanshaha ilaalintuna mas'uuliyadooda weeye marka wixii amniga iyo nabadgelyada wuxuu dhimaya inay tallaabo ka qaadaan marka ay saaleeyeen waxay leeyihiin ciidamada soo kaxaysanaynayo xafiisyada oo NLF baan weeraraynaayo ciidamada la soo kaxaynayo yaa soo amraya madaxweynaha soo amraya ya ma cidda oo NLF la wareegaysa xafiisyada la wareegaysa ma dowlad deegaanka waa su'aal meesha ku jirta su'aashaas ay soo weydiinayna dowladdaanku waxaan filaynaa inayna arrintaasi xaqna u lahayn wax ku habboonna ayna ahayn dhibaatadeeda iyo wixii ka yimaadana iyo amni darradana inay u baleeraan inayna meesha ku jirin taas waxaan uga digaynaa cid kaste oo wax fadqalala ah ummadda dhexdeeda iyo ururka iyo halganka dhexdiisa la soo abaarta inay iyadu mas'uuliyadeeda qaadi doonto waxaan mar labaad ku celinayaa oon leeyahay runtii adduunka waxa ka dhacay wax walba wuu dhacaa laakiin taariikh baa isqorta taariikh baa qormaysa marka maanta taariikhda deegaankeena ka qorantahay waxay ku suntanaan doontaa ciddii mas'uuliyadeeda qaadi doonta unbaa la ogaan doonaa marka waxaan leenahay qof walow taariikhdaada Soomaalidu maabaa jirta la yiraahdo aan maalin samaysada ku dhaaftaa laakiin maalintii way ku dhaaftaa laakiin ceebtii way ku taagnaanaysaa taariikhda waxa aad gasho uu ku taagnaanaya marka waxaan leenahay arrimahaas aad looga fiirsado dhibaatada ka iman kartana inagoo wada garan hayna yaan ummadeena dib in ku filan way soo martay yaa dib loo soo jiiday oo NLFna dagaal kuma jirto halgankeedii way wadataa si nabadgelyo ku wadanaysaa cidii ka taqaantaanayso leh halganka nabadgelyo ku wadan kartiina mas'uuliyadeeda iyada qaadaysa waxa ka sheegayna oo runtii xasuusin laha kaftan baha ahaatay lixdii sano hadda u dambeysay qoladan hadda le ma taqaanaa warqad baa nala siiyay iyo annaga hadda urur baan noqonaynaa urur bay sheeganayeen xafiis baa caalan uga taagnaa yambeelo oo NLF oo sharciyadii iyo xulkii waxa haysataa waliba xafiiskooda mayna faragelinin kamana ayna hadin war maxaa marka sabir darida iyo yaani qiyaas xibada hal maalin iyo bil adkaysan leeyihiin miya oo maxaa xafiiskooda awal hadduu furaanagu maanan faragelinaynin kamana aanan hadlaynin maxay ku keeneen inay xafiisyadeeda ka hadlaan arrintaasi waa arrin lafteeda wax lagu qoslo weeye waxaan u arkaa inay tahay uun xisaabta ka qaldan ay isu geyn layihiin oo meel ay kaga hagaagan ay garan layihiin oo ay kolba meel iska dakhriyaan umaan u arkaa
marka taana waxaan leenahay dee rag baa tihiine intee aan idiin adkaysanay in laeg adkaysta haddii aad mataqaanaa aadee rag dadaalayo oo ururnimo iyo halgan iyo wuxuu sheeganhaya mataqaanaa ka tarjumaya haddaad tihiin taasaan iyada lafteeda odhan lahayo maxaa yeelay 6 sano calan aan halkaa un jooga yaa idin biglaynayay oo NLF oo idinka carqaladaynaysa ama idinka mataqaanaa hortaagan ama caalanka daji iyo xafiiskan maxaa u furan yahay midna ma jirin sida awgeed dee mas-uuliyadeeda qaata taan oo dad haddaad xun ku fakaraysaan oo ay mataqaanaa runtii halkaas waan idinkula kaftami lahaa laakiin waxay tahay dee wax sharci oo tihiinma ma jiro wax xubna oo NLF oo tihiinna maba jirto sida awgeed dee wixii aad la timaadaani waaba sharci darre laakiin waxaan uga digayaa oon mar labaad ku celinayaa dadka noocaasa in ummadda iyo deegaanka iyo ciidanku inay intay adeegsadaan ay fawdaday samaynhayaane ay ummadda dhibaato u keento oo dhib aan hadda loo baahnayn uu ka dhasho yaan mar labaad ka digayaa ugu dambeyn waxaan baaq u darayaa dowlad deegaanka iyo dowladda Ethiopia labadaba dowlad deegaanka baaqaan u darayaa waxaa weeye nabadgelyada ka jirta deegaankeenna waxay carqalad u keenayaa inaan lagu degdegin aadna looga feejignaado dowladda Ethiopia waxaan ugu baaqaynaa qaska ka socda dowlad deegaanka ururo iyo kooxo gacan ku rimisa oo runtii carqalad iyo dhib inay abuuraan aad moodo inay ka soo wajahan tahay wixii keenaya in laga hortago mar labaad ururka ONLF dowladda Ethiopia ayuu heshiis la galay walina heshiiskii ayuu ku taagan yahay marka waxa la wixii heshiiskii wuxuu dhimayaa mas'uuliyadeeda dowlad deegaanka Soomaalida dowladda Ethiopia iyo dowlad deegaanka ayaa mas'uuliyadeeda qaadaya marka waxaan leenahay arintaas aad iyo aad hal looga feejignaado mar labaadna waxaan leenahay ONLF dagaal ma socoto laakiin dagaal in la geliyo yaa aad moodaa in aad loogu suxulduubaye laakiin laga faa'iidi maaye arintaana hal laga digtoonaado hana laga waantoobo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.